Assalaamu calaykum. Maaraynta waqtigu waa mid ka mid ah xirfadaha ugu muhiimsan ee ay tahay in uu qof waliba barto. Waayo xirfadan haddii aad barato waxaad xakameynaysaa noloshaada. Haddii aad noloshaada xakameysana waxaad gaadhaysaa ujeed kasta oo aad nolosha ka leedahay. Waxaa jira habab badan oo waqtiga loo maareeyo. Muuqaalkan waxa aan kuugu soo gudbin doonaa 6 talaabo ee ugu muhiimsan maaraynta waqtiga. haddaba intaynaan muuqaalka u gelin ka hor fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe taabo sidoo kale channelskana furo muuqaalka like saar wixii aad tala iyo tusaale noo haysana noogu reeb qaybta commentiga mahadsanid. Talaabada koobaad dejiso hadaf cad. Marka aad garanayso meesha aad u socoto waxaad ku tagaysaa waqti kooban. sidoo kale markaad leedahay hadaf cad waxaad garanaysaa waqtiga uu kaaga baahan yahay. sidaas daraadeed waqtigu kaaga lumi maayo macna daro waxaanad ahaanaysaa qof mar walba ka shaqeeya ka dhabaynta hadafkiisa. Talaabada labaad sii qorshee maalintaada. Habeenkii inta aanad seexan 10 daqiiqo ka hor sii qorshee waxa aad berri qaban doonto. Tani waa mid ka mid ah talaabooyinka ugu muhiimsan sababtoo ah waxaad garanaysaa wax walba oo aad berri qabanayso sidaas darteed waqtigu kaaga lumi maayo meel kale. Talaabada saddexaad ha seexan wax ka badan 7 ilaa 8 saacadood. Waxaynu ognahay in hurdadu tahay waxa ugu badan ee waqtigeena qaata. waxay qaadataa 3 meelood oo meel 24 saacadoodba. haddaba ka waran haddii aad seexato 8 saac wax ka badan dabcan waqti badan ayaa kaa lumaya. sidaas darteed xakamee hurdadaada. Talaabada afraad hawlahaaga mudnaanta kala sii. inta badan hawlaha aynu qabanaa waxay u kala baxaan 4 qaybood. hawl muhiim ah oo degdeg ah, hawl muhiim ah balse aan degdeg ahayn, hawl degdeg ah balse aan muhiim ahayn, iyo hawl aan degdegna ahayn muhiimna ahayn. marka ay hawli kugu soo baxdo 4 mid ka mid ah bay noqonaysaa. hawsha muhiimka ah ee degdega ah isla waqtiga qabo, hawsha muhiimka ah ee aan degdega ahaynna waqti u qabo, hawsha degdega ah ee aan muhiimka ahaynna qof kale u xil saar, hawsha aan degdegana ahayn muhiimkana ahaynna meesha ka saar. Talaabada shanaad waqti hore bilow. waa maxay sirta ku jirta inaad waqti hore bilowdo? inaad waqti hore hawlahaaga bilowdo waxay kuu sahlaysaa sidoo kale inaad waqti hore dhamayso iyo sidoo kale inaad hawl kastaba waqti ku filan u hesho. waqti hore bilow hawl kasta. Talaabada lixaad baro inaad tidhaa maya. inaad tidhaa maya ceeb maaha, diidmana maaha. mararka qaar waxa kugu soo baxaya waxyaabo aan muhiim ku ahayn. waxyaabahaas waa inaad tidhaa maya. tusaale asxaabtaada ayaa waxay doonayaan inaad suuqa u raacdo balse adigu hawl muhiim ah ayaad ku jirtaa sida imtixaan aad diyaarinayso oo kale. markaas oo kale dheh maya laakiin u dheh si ixtiraam leh.